Ra'iisul Wasaare Roble ayaa jawaab adag ka bixiyay qoraal uu soo saaray madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taas oo ku eedeeyay in ra'iisul wasaaruhu gudan waayo waajibaadkii loo igmaday ee ahaa dhamaystirka doorashooyinka dalka sidoo kalena isugu yeeray golaha wada tashiga qaranka taas oo lagu macneeyay in uu ku carqaladeynayo shirkii uu dhawaan iclaamiyay Roble warqad ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha oo looga jawaabayo eedeymahaasi ayaa la sheegay inaan marnaba la aqbali doonin in musharax gaar ah uu ku taglifaro doorashada dalka waxaa warqadda lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu aad uga xun yahay qoraalka saakay aroortii ka soo baxay xafiiska madaxweynaha qoraalkaas oo la sheegay inuu ahaa mid si ku talagal ah oo madaxweynuhu ugu carqaladeynayo hanaanka doorashada dalka oo maraya marxalad aad xasaasi u ah sida ka muuqata waqtiga lagu soo beegay qoraalkan oo ah xilli loo ballansan yahay kulanka golaha wada tashiga qaranka oo la doonayo in lagu dardargeliyo howlaha doorashooyinka iyo ilaalinta hufnaanta doorashada waa qorshe uu madaxweynuhu ku doonayo inuu uga hortago kulanka golaha taas oo si cad u muujinaysa inaanu madaxweynuhu marna raali ka ahayn kana noqon doonin in dalkan ay ka dhacdo doorasho ay ku kalsoonaan karaan bulshada Soomaaliyeed ayaa sidoo kale lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska Roble waxaan la wadaagaynaa shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba in madaxweynuhu intii xafiiska joogay uu waqti maal iyo maskaxba ku bixinayay sidii uu ku sii joogi lahaa xafiiska isaga oo isku dayaya in doorashadu noqoto oo kaliya mid ka jawaabaysa danihiisa ama uu wadada ugu xaarto muddo kororsi sharci darro ah tan iyo intii ra'iisul wasaaruhu la wareegay hogaaminta howlaha doorashooyinka dalka madaxweynuhu waxa uu si joogto ah caqabad ugu ah hirgelinta doorashadii lagu heshiiyay isaga oo isticmaalay xeelado kala duwan kuwaas oo markii mid la xaliyaba uu abuuray mid kale ilaa uu saaka si cad oo sharciga baalmarsan u soo saaray baaqan mas'uuliyad darrada ah waxaa xusid mudan in doorashada uu hogaaminayo ra'iisul wasaaruhu ay tahay mid ay u sameeyeen dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan musharaxiinta u tartamaya hoggaanka dalka oo uu ku jiro madaxweynuhu sidaa darteedna lama aqbali karo in musharax gaar ah uu isku dayo inuu doorashada ka dhigo mid uu natiijadeeda ku leeyahay saameyn gaar ah haddaba waxaan shacabka Soomaaliyeed u cadeynaynaa in mas'uuliyadda doorashadu ay saaran tahay ra'iisul wasaaraha iyo golaha wada tashiga qaranka sidaas awgeed shirka golaha wada tashiga qaranka ee uu iclaamiyay ra'iisul wasaaruhu ayaa ku qabsoomaya magaalada Muqdisho sidii ku talagalku u ahaa ra'iisul wasaaruhu waxa uu wadaa kulamo aragti wadaag ah oo uu la leeyahay bulshada rayidka ah golaha musharaxiinta iyo beesha caalamka si looga dhageysto talooyinkooda la xiriira hufnaanta doorashada iyo dhamaystirka golaha shacabka oo waqtiyeysan kuwaas oo lagu dhamaystiri doono kulanka golaha wada tashiga qaranka ra'iisul wasaaruhu waxa uu la socodsiinayaa shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada caalamkaba in la joogo xilligii si wada jira looga hor imaan lahaa shakhsiyaadka caqabada ku ah nabadda iyo dawlad dhiska Soomaaliya si looga baaqsado in uu dalku galo qalalaase siyaasadeed iyo mid amni ayaa la sii raaciyay qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble ugu dambeyn qoraalka ayaa lagu soo gabagabeeyay ra'iisul wasaaruhu isaga oo gudanaya waajibaadka qaran ee uu siiyay dastuurka ku meel gaarka ah raacayana heshiisyadii siyaasadeed ee awoodda u siiyay hogaaminta doorashada iyo amniga wuxuu u ballan qaadayaa shacabka Soomaaliyeed isaga oo kaashanaya golaha wada tashiga qaranka in uu xooggiisa isugu geynayo dhamaystirka doorashada iyada oo la ilaalinayo hufnaanteeda maadaama xalka kaliya ee u furan qarankan ay tahay doorasho horseeda in awoodda lagu kala wareego si sharci ah oo nabdoon qoraalada ka soo kala baxay xafiisyada ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa iftiiminaya in dalku uu galayo marxalad adag oo keeni karta gacan ka hadal mar kale Muqdisho ka dhaca